بسم الله الرحمن الرحيم waa mar kale barnaamijkeena ku saabsanaa Microsoft SQL Server. maanta waxaanu baran doonaa markaasi sida loo wax looga bedelo markaasi structure-kii table aad hore u samaysay structure-kiisa sida aad uga bedeli lahayd, ha noqoto columns aad ku daraysid ama column aad ka saaraysid ama column hore u jiray oo aad data type-kii ka bedelayso oo data type cusub siinayso ama table-kii aad magacii uu hore u lahaa ka bedelayso magac markaasi cusub aad u sameynaysid. marka hore waynu soo kicinaa markaa Microsoft SQL Server-kii sidaan hore usoo sheegnayba waxaanu ku shaqeynaynaa un labadii hab ama GUI baynu ku shaqeyn doonaa markaasi ama waxaanu ku shaqeyn doonaa markaasi query. markaa imika shaqada ugu horeysa aynu qaban doonaa waa inaynu table aynu hore u sameynay markaasi aynu ka column cusub ku darno. GUI waxaan soo kala furaynaa folderka loo yaqaano databases, waxaanu sii kala furaynaa markaasi database-keeni, waxaan sii kala furaynaa folderka loo yaqaano tables. markaa table-ka aad doonaysa marba inaad ku darto column cusub ayaad dushiisa ku dhufanaysaa qaybta midiga mouse-ka ama right click-ta, dabeedna waxaad ka dooranaysaa design-kii halkii markii hore laga soo sameeyey igee weeyaan design-ku. waa kan halkan buu ina keenay oo ah meeshaad marka hore kasoo create garaysay. markaad doonaysa aad column cusub ku darto sidii caadiga ahayd dee halkaa bannaan baad ku qoraysaa column-ka magaciisa. then marnalba mise waa national marba kaad doonayso dadna safe baad leedahay waad iska xidhaysaa. markaa right click baad ku dhufanaysaa, haddana waxaad tegaysaa edit top 200 rows. halkan buu markaa ku keeni doonaa oo ah meesha data laga geliyo. wuxuu table-kan ka koobnaa 3 column ID, name iyo address. waxaanu ku soo darnay column-ka cusub ee loo yaqaano date oo isaga wada null ah ama wada bannaan markaas oo waxba ku jirin markaas. waayahay intaasaan kaga gudbaynaa markaas table markaasi column hore u jiray bay markaa ka bedelinaa data type-ka oo data type cusub siinayna. right click baad siinaysaa table-ka aad doonaysay dadna design-kiisa tegaysaa. waa kan liiskii column-yada halkan buu inoo soo geli doonaa. markaa marba column-ka aad doonaysaan data type-kiisa bedeshaad ku dhufanaysaa, dabeedna halkan baad ka dooranaysaa data type-ka cusub eed markaasi aad u bedelayso. then saas baad safe ku leedahay, safe baad leedahay. waxaa laga yaabaa farkar waa qoraal, halkana number baa ayuu ID markii hore hayay, markaa way student kole laakiin sidaas ayuunbaa loo bedelayaa. waayahay query-na waan ku samayn doonaa. waayo markaa query cusub baan soo furi doonaa markaynu column cusub ku darayno table-keeni. haddaynu eegno horta table-kan loo yaqaanay fee wuxuu ka kooban yahay 4 column ID, name, address iyo weliba markaasi date. waxaanu ku dari doonaa column cusub oo loo yaqaano gender. markaa query-ga baynu qoraynaa. waxaan nidhi alter table. alter waa inaga hore soo aragnay. markaa table-ka wax ka bedel loo yaqaano fee maxaa laga bedelayaa ar waxaad ku dartaa gender oo ah column data type-kiisu ay farkar maximum length-kiisu yahay null isagoo bannaan laga tegi karo. null waad iskaga tegi kartaa waana qori kartaa. highlight baan leenahay execute wuu ku daray. hadda aynu eegno okay waxaa inoogu soo biray column-ka loo yaqaano gender waa null waa uu bannaayay markaas. waxaan samayn doonaa column-kii cusub aynu ku darnay baan ka turi doonaa inagoo isticmaalina markaasi query-ga cusub markaa qorayna.
waxaan leenahay alter table tableka wax ka bedel maxaa laga bedelayaa drop waxaad ku tuurtaa columnka magacaada tuur highlight baad ku sameynaysaa execute baad looga tuur hadda aynu eegno saddexdiina afarteena column marka hore buu lahaa ayuunba markaas kusoo hadhay waxaynu bedelaynaa data type-kii column hore u jira tusaale ahaan id-ga aynu eegno halkan right click baan leenahay dhisaankiisaan tegaynaa afwan registrationkaan ku dhuftay fee-ga aynu right click siinanaa dhisaankiisaan tegaynaa markaasi markaa column-kaa loo yaqaano id data type-kiisu waa integer bal integer baynu ka bedeli doonaa varchar baynu ka dhigaynaa hadduu naga qaato yahay waxaan alter tableka magacaa leh alter column wax ka bedel columnka id-ga leh waxaad siisaa data type-ka varchar oo maximum lagedkiisu intuu yahay isagoo bannaan yaa laga tegin execute baan leenahay haddaan right click markaad ku sameyno dhisaankiisii bayn tegi doonaa marka varchar ayuu ka dhigay columnkii loo yaqaanay id data type-kiisu ka dhigay varchar waayahay markaa iminka waxaan sameyn doonaa tablekeena bay magaca ka bedelinaa tablekeena marka GUI ahaan magaca looga bedeliyo iska symbol right click baad ku dhufan doontaa dabadna waxaad odhanaysaa rename enter baad markaa leedahay marka uu ka bedela magacii bal query ahaan aynu ku sameyno waxaanu idhi exact baad leedahay sp rename intaa markaad qorto waxaad furaysaa markaa calaamaddaa yar waxaad ku dhex qori labada calaamad waxaad ku dhex qoraysaa all nameka ama magacii hore u lahaa tablekaagu haddana labadii calaamad baad furaysaa waxaad haddana ku qoraysaa magacii cusbaa ee new nameka ah highlight waad ku sameynaysaa execute markaa iminka haddana right click markaas aan idhaahno refresh magacii wuxuu qaadan doonaa fee kaas waayahay intaa waxay noogu dhammaaday markaa objectgii ugu horreeyey ee markaa database markaan sameynay waxaynu kusii sameynay markaas objectgaas oo object marka databasekeena aan kasoo kala furno cabdi objectgii aan ku sameynay waa table markaa labada table baan sameynay laba object ah intaa markaa table intaa waxay noogu dhammaaday table casharka xiga waxaan ku baran doonaa objectka labaad oo loo yaqaano markaasi default inta ka horeysa salaamtaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala